بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan bilaabaynaa cashir jadiida anagoo kusoo laabayna cashiradii hore aanu qaadan jiray silsiladda inoo ahayd material testing muummaadka si loo baaro materialka baaritaankeedii. marka maanta waxaan baaraynaa baaritaan la yidhaahdo finest modulus kaasoo lagu baarayo oo lagu ogaanayo xaddan yani xuduudka ay leedahay kimiyadda naacimka ee ku jirta niiskaas ama bacaadkaas ku jirta. marka waxa weeyaan taasa baaritaan finest modulus bayla sida awgeed waa baaritaan aad u muhiima. waa silsilad oo materialka lagu baarayo marka waxa weeyaan ka faa'iideysta. marka hore soo ka sambalkan soo qaadanay waxaan ku shubnay miiskii waan ku dul shubaynaa si waan isku laaqaynaa. marka si fiican isku laaqaynaa miiska dusheeda. markaanu laaqitaanka diyaarino hadda waxaan sameeynaa inaan sigibtiro dushiisa oo si aan u kala qaybino separating ku sameyno ayaan saxan ku dul marinayaa. waayo miiskii ku shubay ayuu dul yaalaa saankii ama bacaadkii waa ka saas u yaala. sambalka soo qaadato aad keensato meesha malaabka dad timaado markaas ku sameynaysaa sidaas miiska ku shubaysaa kadibna waad isku laaqaysaa si fiican baad u laaqaysaa. markaad laaqdo waxaad sameynaysaa hadda baad inaad kala qaybiso separate ku samayso. markii hore waxaan ku qaadanin qalab lagu kala qaybiyo noocii lagu qaybinayo maalmihii hore NC analysis ka loo sameeyay. markana waa sidii oo kale laakiin dariiqad kale oo haddii aadan haysan qalabka ku kala qaybinayo aadan haysan ayaa markaa waxaad sameynaysaa inaad adeegsato miis aad adeegsato ama dhulka aad adeegsato ama saxan weyn aad adeegsato madeebad weyn oo ku kala qaybiso. marka saad u qaybinayso waxa weeye afar yaad ku kala qaybinaysaa. saad u kala jeexaysaa gacantaada ama bir baad ku kala jeexi afar qaybood ayaad u kala jeexi. afarta qaybood labadii isku toosanba waxa weeyaan waa cayinad sambal bay ka mid tahay. waqad sanka qaybiye fiiri la soo waxa weeyaan sambalkii saanka oo si fiican u kala qaybiyay. marka waa dariiqada labaad ee loo qaybin karo haddaadan haysan qalabkaas ku kala qaybinaya maalmihii hore aan adeegsan jirnay NC analysis ka markaan ku shaqeynaa materialka taas. marka hadda waxa weeyaan dariiqad kale aan ugu tusayaa si oo haddaadan haysan qalabkaas ku kala qaybsan karto. okay saan sigibtiray waan kala jeexay salaam saa u kala jeexay kadibna oo ka qaybtiis isku midaba ama isku toosanba waa sambal kaasi labada isku toosanba waa sambal aan kala gooyin labada qaybood isku toosanba waa sambal. qayb ka mid aan qaadi hadda waxaan dhigi qayb ka mid aan ka qaadayaa meesha oo weel kale aan ku shubay labada qaybood iska soo horjeedayaan haddana isku laaq. habka loo qaybiyo materialka noocu doona ahaado hataa isfilti ahaado oo daadan haysan qalabkii lagu qaybinay sanad u qaybin ama soil ahaato ciid kale oo soo qaado baaritaan ku sameynaysa ahaado ay sambal adinu haysan qalabkii waxaad u sameynaysaa inaad san u kala qaybiso inaad keento qalabkii oo isku laaqdo si fiican taas ugu laaqdo hadhowna aad sigibtirto dushiisa oo afar geesa yani laba kala jeexdo laba geer kala jeexdo saano xaggana ka jeexdo xaggaan u jeexdo. marka bartanka labada yaad kala soocaysaa hadhow marka dambe dad kula soocaysaa ama burshka yaran haysta ku sifeynaysaa waxaad ogaanaysaa marka in caynad kasta iska soo horjeedi waa sambal oo cagsis kuwa size kuwa iska soo horjeedi. marka hadaba labadii bartanka iska soo horjeedaan qaadnay weelkaasaan ku shubnay waxaanu dhigaynaa meel kale aan ku shubaynaa labadanan haddana dib isugu laaqaynaa si aan caynad sambalka qaadanaysa uu yaraado ugu filaado de يعني waxaa loo baahan yahay yaraan inaad u badnaan inaad qaadato 500 gram nus kiilo inaad qaadato oo baaritaan ku samayso finest modulus bayla. marka waa habka lagu helo xadkan yani xuduudka uu leeyahay intana ku jirta fayanka xad nucuma bay dhahdeen. marka waxa weeye inta ku jirta yani marka muwasafaad bay leedahay specification ay ASTM ama British standard oo la haysto hadaf uu leeyahay inta haduu dhaafo bahalkaagu waa ka gac saasa marka ay daruuri tahay sambal kasta in la baaro ayanad kasta waxay leedahay specification oo kaadama isku laaqayna labadii baan isku keenay isku laaqayna mar labaad si fiican baan mixing u sameeynayna waa ka waan sameeynay mixki isku ururina si fiican shay waxaan ka saarayna marka saxanka ballaaran baan saa ka saarayna si ay noogu ballaarato saakaas. hadda salaab kale marka ku sii sameeynayna marka horna saamo sameeynay adana salaabtaas ku sameeynayna waa ka qaybtiiba waa iska soo horjeediba
labada qaybood iska soo horjeedi waa sambal. labada is ag yaala qaadan maysid, labada iska soo horjeeda ayaad qaadanaysaa. marka isku daraysaa sambalkaad baadhaysa ha weynaado ama ha yaraado, laakiin waxaad samaynaysaa inaad saasoo kale aad isugu qaybiso. waa haddaadan haysan qalabkii lagu qaybinayay aan horey nii tusay, aan horey ugu qaybin jiray. haddaadan haysan sidanaad samaynaysaa, adeegsanaysaa. waayo waxaa loo baahan yahay sambalkani. waxaan ka soo qaadnay Stockholm make stockii waa uu yaalay baan kusoo wareegay. malqacada sambalka sida loo qaadan waa ka horey nii tusay. waad kusoo wareegaysaa, waad soo qaybinaysaa. waxay matashaa cayantan saxankaan ku keenay hadda madeebadkan baalkii koomkii stockii bay matashaa. tanna waa inay saasoo kale stockii sambalka yareed qaadayso uu matalo, yacni sambalkii dhanaa ee meesha yaale ee simitada lagu laaqayay. saxankii baan hadda 0 ka dhigaynaa. saxanku hadda waa 0. waxa dul saaran buu ku miisaamay hadda isaga waa 0 baad ka dhigaysaa. labada iska soo horjeeda ayaa hadda qaadanayna fiiri. taadan haysan qalab aad ku kala qaybiso saasaad adeegsan. labada iska soo horjeeda ayaanu qaadanayna wadkaas. labadaas maanaan qaadan, labadaas waa iska soo horjeeday. labadaas iska soo horjeeda ayaad qaadanaysaa. sambalkaad baadhaysa ha weynaado ama ha yaraado, markaasana samaynaysaa. haddii xataa aad ku laaqayso qalab waaweyn xataa sanaad u samaynaysaa. haddii aad u baahato sambal labaad inaad qaadato, kaasaad qaadan. labadaas isku dari, sambal baad ka dhigi. laba sambal baa daa'iman la baadhaa. material kasta laba sambal baad qaadaysaa, ayaad baadhitaan ku samaynaysaa. labadaas sambal baad qaadaysaa. waan qoraynaa markaa miisaankiisa hadda. waan qoraynaa marka waxaan ku kacaynaa inaanu meydhitaan ku samayno. waan miisaanay hadda waanu qaadayna. waxaan samaynaa washing aan ku samayno. washtaan baa lagu sameeyay. siifka 2000 baa lagu meydhaya ama 00 yani 75 yaa ku taala siifkaas. markaa siifafka barashadiisa iyo aad u muhiimsanayd in horeyna nigu soo qoray anigu warqadna nigu soo cadeeyay. siifkan waa shaqada dhan, hawsha dhan isagaa wado. siif aan la sameeyay tarkiib haddaad samaynayso, khaldad samaynayso, isfilti haddaad samaynayso, waxaa loo baahan yahay siifka. hadda washad ku samayn waxa weeyaan wixii dhaafa looma baahno. siifka wixii dhaafa looma baahno. waxaa loo ogaanayaa hadda waa miisaaman tahay. tii hore jaa horey waan miisaanay. hadda markaan miisaano waxaanu ka saaraynaa mawaadkii ku jirtay ee ahayd clay ahayd ama tiin ahayd ama ahayd daadsamu waxaa lagu magacaabaa dadsan lagu magacaabo. mawaad oo ramli oo niso waxaa jira sacaad oo bacaad dhintay lagu magacaabo oo yar baa jira. marka hawadu keento yani aanan ahayn niis dabiici oo xoog awood leh, biyuu raacaya markaas ugaas. miisaani khalaas waan dhamaystiray. waan soo engejinay intii aan soo tusay. waan makaan ma idhay aan engejinay. hadda waxa way siif aan la isku sameeyna. siifkan hadda soo loo baaray kii hore la mid maaha. sidii hore weeyaan. kii hore waxa loo baahan yahay daa'iman in la qaato passing, yani percentage of passing siif analysis. kan hadda waxaad miisaamaysaa percentage of returning iyaad qaadanaysaa. xisaabta description-kaad ka helaysaa oo wasfigu aad tafaasiil ugu sameeyey fine modeleskiisii. horta marka horeysa waxaad ku samaynaysaa siif analysis. waad miisaamaysaa mid kasta oo kamid waan miisaamayna. hadda waan soo gaagaabiyey suuna waqtigu noogu dheeraan. baalaha sifafkaas dul saaran oo dhan mid baad u shaandhayn. midka shaandhadiisa waxay qaadanaysaa waqti bay qaadanaysaa. si fiican baad u shaandhayn. markaad shaandhaysay aad tiraahdo waxba kama dhacayaan hadeed ayaa waxaad samaynaysaa oo kii wareeyay wakaas hal xabaa ku hadhay ma labo. waan miisaamayna waanu qoraynaa. wix allaala wixii ku hadhay waa la qori. wixii kale isaga dhaafayna siifkii ka dambeeyay baa lagu celinaya. totalkii waan haysanaa markii wareysaan miisaanay. haddaba haddana kii ku xigaanu shaandhaynaynaa. markaanu shaandhayno kaana intii retain ku noqota ayaanu miisaamayna. waanu miisaanay. saasay ku soconaysaa markaa dhammaan waqti waan soo gaabiyey ilaa kii wareegudi. saasaad kolba u miisaamaysaa. mid kasta markuu istaago dhamay waxba ka dhici waayo ayaa waxaad samaynaysaa inaad yani aad ku samayso miisaanta mid kasta. waa ka hadda kii u dambeeyey saasaan ku sameynaa. kii dambeeyey waa kaas hadda wadnaa.
marka kan wuxuu socdaa ilaa siif la yidhaahdo 100 ama 150 ama 150 la yidhaah laakiin waxa weeyaan siifka magaciisu waa 100 ama 150 baa lagu magacaaba uu ku qoran yahay hadda waad miisaamaysaa waa dhamaystiraysaa marka xisaabta description waxaad ka helaysaan wasfiga hoosta ku yaala sidoo siifkii analyze-kii habkii retaining loo xisaabinayay iyo habkii finest modelist loo xisaabinayna labadaba halkaas ka helaysa subscribe dhaha oo shay dhaha dhammaan soo dhaniyada u gaadho khayr baa idin rajeeya dhammaantiin xisaabta warqadan waa idin muuqata ugu dambaysa waa taas hadda saas oo kale loo xisaabinaya laakiin waxa weeyaan la socda khayr baan soo ognay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته